madaxda fariinta u diraayo waxa waaye waxa aad tihiin runtii waalidiin baad noo tihiin waxa idin doortay waa shacabkiini waxa idin doorteen waa baahi ay idin qabaan waxaad u qabanaysaan waa baahidoodii aad fulinaysaan ilaahay wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ugu jecel yahay shaqo la qabtaa shaqada la itqaaniyo shaqada la sugo ayuu ilaahay u jecel yahay wuxuu kaloo jecel yahay sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim qof walaalka oo qalbigiisa farxad gelisid maanta ummadan dhalinyaradan reer nootista shaqay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin daacad bay u baahan yihiin cadaalad bay u baahan yihiin waxbarashay u baahan yihiin caafimaad isbitaalay u baahan yihiin wadooyin qurux badan oo ay ku socdaan bay u baahan yihiin mid walba nalal iyo qabow inuu ku naaloodo u baahan yihiin shaqo abuur bay u baahan yihiin in la caawiyo ayay u baahan yihiin marka intaas oo dhan waa xilkii aad qaadeen waa ballamihii aad qaadeen qofkana ballanta uu qaado inuu oofiyo ilaahay baa dhahaya wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'uulan war ballamaad qaadaan dad yahow oofiya maxaa yeelay ballanta oo aan la oofinin maalinka qiyaamaha khasaaro waayo waa isweydiina teeda kale maruu ka hadlayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam amaanada iyo aakhiro iyo qofkan amaanada maanta intuu qaado ballama qaado aan oofinin sida ku dhinta aakhiro waxa qabsanaya wuxuu markuu ka sheekay ninba wuxuu yiri markii qofku wuxuu imanaya isagoo gacmihiisu ay xiran yihiin oo ay qoortu ku xiran yihiin illa cadaaladii uu sameyn jiray ay ka furto ama jawrkii iyo gardaradii cadaab ay ku geyso ninba markuu wuxuu yiri rasuulallah anigu waxba ma hay cidna mas'uul kama ihi laakiin digaag ba guriga ii joogta digaag ayaa guriga ii joogta digaagtaas miyaa aakhiro lagu cadaabaya wuxuu yiri ukunteeda ma cuntaa ma ku intifaacdaha waa inaad biyaheeda iyo cunadeeda aad siisa hada siin weydid adoo gacmuhu ka xiriin baad u iimaanaysaa eeg midna wad garanaysaan oo cadaaba gabar waxay ku gashay bisad ay xirtay ma ayna deynaysay xashaashkeedii caagaarkeedii cuntadeeda ay u raadsata lama deynin waxna ma ayna siinin markaas gaaje u dhimatay wax walbo ay qabato salaad iyo soon iyo zakat waxba uma tarin cadaab bay gashay maxaa yeelay nafsad bay dhibtay marka ilaahay rasuulku wuxuu leeyahay asman ku gabagabeynaya inna allaha sa'ilun kull raa'in amma istar'ah ahafidha dhalika am dayya ilaahay wuu weydiinaa anas baa dhahaya rasuulkuna ka soo warinaya sallallahu wuxuu yiri ilaahay wallahi wuu weydiinaya raaci walba mas'uul walba wixii maaragtay la raaciyay inuu ka soo baxay iyo in kale teeda kale raaciyadan وويلشيني وادتكيني قرابديني حكتديني وأمديني وادتك أنا ودنك وضع لهاين وين إن وحلو قبتا ومهم dadkan waa jannadeenii waana naarteenii maxaa yeelay rasuulku waa ku dhahay xadiis saxiixaynka ku sugan saacsan wuxuu ku dhahayo ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna yani majro nin la raaciyay ra'iyad mas'uul laga dhigay 10 ruux 20 ruux 30 ruux bal malaayiin ruux mas'uul qof laga dhigay maalin oo soo dhimanaya maalinku dhimanayo isagoo ضيع مسؤوليتي إلا هدي أساس نوجي ماده حرم الله عليه الجنة جنة دي إلهي وكحرمي سأمدان هدانا وحب الله قبنين وحد أوقاتان والسويدين يا حدان ما تدونك وحبل سكوي دين وحد أوقاتان مال باجر إلهي أودها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزان عادل عن قربيشن جرين عن لوير جرين إن أذير جرين وعادل أذيك إلهي أدي سهر استاجي سنة هنا فضوضي سننا هنا ديري سننا وقت إلهي الهور استاجي أو إذن ويدينيو مسؤولية ديني إن تكسب بحدني إن كالت وجوردو عاود لمن كرتا نفس هذا وما هيسد جرنتي حدد لمن كرتا عاود لمن كرتا بالربط لمن كرتا مر walba waa dhimani boqol sano hadii lagu siiyo waa un birri wax imanaya waa dhow yahay marka ilaahay aynu ka cabsano umada aynu wax u qabanno waxaynu cuneynaa aynu ilaalino uurkeena xaaraan aan ka fogeyno qalbiyadeena aan hagaajino aad iyo aad baan runtii idin salaamaya